Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan xog wareysi iyo wada tashi la yeeshay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, Guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka iyo Guddiga dib u eegista ee madaxa bannaan, kuwaasi oo ka warbixiyay halka ay marayaan howlaha dhamaystirka dastuurka iyo arrimaha horyaala. Hay'adaha qaabilsan dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka ayaa Ra'iisul Wasaaraha warbixin ka siiyay howlihii u qabsoomay muddadii la soo dhaafay, waxayna sheegeen in la dhammaystiray dastuurka 85%, haatana loo baahan yahay in la gudagalo 10 qodob oo masiiri ah kuwaas oo u baahan wada xaajood siyaasadeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in xukuumaddiisu ay ahmiyad gaar ah siinayso sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka ku meel gaarka ah, iyadoo xoogga la saarayo qodobada u baahan wada tashiga guud, maadaama la soo dhammaystiray inta badan qodobadii farsamo. Waxauna bogaadiyay shaqadii ay qabteen Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, guddiyada u xil saaran dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka, kuwaas oo ku soo shaqeeya duruufo adag. Sihayaha Wasiirka Dastuurka Saalax Axmed Jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in kulankan uu muhiim u ah hay'adaha u xil saaran dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka. Maanta waxaanu halkan shir kula yeelanay Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Rooble, annagoo ah saddexda hay'adood bahda dib u eegista dastuurka, Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, Guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo Guddiga baarlamaaniga ee kor joogtaysa dib u eegista dastuurka. kulankaas oo saacada socday waxaanu ka baaraan degnay awalan waxaan warbixin kaamila ka siinay Ra'iisul Wasaaraha howlaha dib u eegista dastuurka halkay marayaan iyo in 85% qodobadii farsamo iyo hawshii la tashi ee guud ahaan loo baahnaa ay dhammaystiran tahay marka la eego xag farsamo. waxaanu kala uga warranay wacyigelintii iyo barnaamijyadii guud ee dalkaanu ka fulinay markii aanu dib u eegista ku howlanayn. ugu dambeyntiina waxaan uga warranay qodobada xasaasiga ee masiiriga ah ilaa 9 qodob ah ee u baahan in loo helo wada xaajood siyaasadeed iyo qaarkii laga gaadhayba. run ahaantii Ra'iisul Wasaaruhu aad buu u soo dhaweeyay hawsha baaxadda leh ee ay labada guddi iyo wasaaraddu gacanta ku hayeen dhowrkii sano u dambeysay. wuxuuna noo ballan qaaday in hadda maadaama xilli kala guura la gelayo uu nala idlayn doono wixii hadda qabyo ah xagga wada xaajoodka. waxyaabihii kale xag farsamana sidii loo kaydin lahaa oo loo dhitayn lahaa baan isla meel dhignay. marka shir buu ahaa ka mid ahaa shirarkii caamka ahaa aanu la geli jirnay madaxda. Ra'iisul Wasaaruhuna ahmiyad gaara ayuu bahda dastuurka siiyey isagoo hadda ku jira xilligii hawshiisu ay bilowga ahayd. khudbadiisii baarlamaanka uu ku jeediyeyna way ku jirtay in uu dastuurka siinayo ahmiyaddiisa. arrimaha hadda doorashooyinka la xidhiidha iyo guud ahaan dalkuba waa arrimo ku lug leh dastuurka. marka xasiloonida iyo horusocodka qarandhiska Soomaaliyeed waxaa aasaas u ah dastuurka. ayaamahan iyo bilahan soo socda inta ka hadhay mandate-kan sidii aanu u soo idlayn lahayn howlaha dhimanna waanu isla meel dhignay, isna gacan buu naga siin doonaa. saasaan ku wargelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee aad ugu dhegtaagaya arrimaha dastuurka. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.